Asalaamu calaykum bahda gaarsiiya mar kale inta soo dhawaada maanta waxaan qaadan doonaa cashir kale oo muhiim ah oo ka tirsan koorskeena Microsoft Excel cashirkeeni 26aad cashirkeena maanta waxaan ku baran doonaa sidee alignment loogu sameeyaa Microsoft Excel markii aad joogno adigoo u isticmaalaya textiga iyo numberska xogaha ah ee Excel kaaga alignment wuxuu noqon karaa inaad right isticmaashid alignment ama left isticmaashid ama center sidoo kale inta alignment wuxuu noqon karaa inaad top isticmaashid ama center ama down aanu aragno dhamaantood ku soo dhawow cashirkeena maanta Excel-ka markii aad joogtid alignment markii la sameynayo waxaa la isticmaalaa laba shay alignment macnaheedu waxay tahay cabirada uu leeyahay Excel-ka tusaalaha marka aan fiirino waxaan arki kareynaa maxaa la yiraahdaa ciwaankan oo kale inta hadda cabirkiisa in centerka lagu soo aadiyo oo geesaha uu ka banaan yahay sidoo kale inta waxaan arkaynaa itemska iyo descriptionka inay center yaalaan sidoo kale waxaan arkaynaa item kasta inuu center yaalo descriptionkiisana uu laba line ku qoran yahay oo qofka si full ah u akhrin karayo maamulaha ama qofka loo diro Excel-kan soo marka numberska waxaan arkaynaa inuu soo aadiyo marka alignment concept ugu weyn uu leeyahay waxay tahay in uu ku muujinayo ama data uu soo bandhigo si la wada arki karayo dhamaanteed marka aan fiirino marka practice-ka anagoo isticmaaleyno practice-ka marka imaano hadda waxaan arkaynaa xogtaan la siiyay in alignment aysan ahayn qofka markuu ugu horreysay soo dhaxgalo arka inuusan waxyaabo badan uusan ka fahmi karin ama akhri karin tusaale hadda waxaan arkaynaa ciwaanka oo kale in uu alignment uusan ahayn uu jiro dhanka leftiga oo u badan yahay dhankan kale oo faaraqaya marka si aan ugu sameyno alignment waxaan dhihi karnaa ciwaanada waxaa loo isticmaalaa center qoraalada waxaa loo isticmaalaa left markii aad rabtid totalkan waxaa loo isticmaalaa right numberska caadiga ah waxaa loo isticmaalaa center si marka aan centerka uga dhigno waxaan dooranaynaa cellka then alignment waxaa ka helaysaa qaybtan home markii aad soo gashid alignments marka waxay noqdaan sida ay u sheegnay left alignment center alignment iyo waxay noqdaan right alignment sidoo kale waxaa jiro iyadoo top ah oo qaybta kore alignment laga sameynayo centerka iyadoo loo fiirinayo middle alignment-ga iyo qaybta maxaa la yiraahdaa oo right-ka ah iyadoo laga isticmaalayo marka ama bottom-ka dhexe laga isticmaalayo marka anagoo ka faa'iideysanayna marka alignment-daas ayaa sameyn doonaa iyo widget anagoo isticmaalna si qoraalada markii aan saxeyno soo marka hadda markaa doorano center aan dhahno waxaan arkaynaa in geesaha uu ka banaanaado qoraalkana si fiican loo arki karaa marka qaybtan kale inta markaa u imaano ciwaanada way noo saxan yihiin si aad u hubeysidna waxaad sameyn kartaa waad dooranaysaa hadda waxaad arkaysaa middle oo center inay yihiin ciwaanada dhammaantood laakiin halkaa marka aad timaadid waxaa arkaynaa markaa cellkan ku dhufano formal barka wuxuuna tusaa in qoraal badan uu ku qoran yahay laakiin qoraalkaas anaga keliya aan ka aragno inta ugu horeyso intaan kale oo qaybta gadaalaha dhanna aysan aanan u jeedin marka si aan u saxno marka waxaad oranaysaa cellka dan waxaan leenahay widget text oo ah qoraalkaade lemis iga samee cabirka aan doorto adigoo isticmaalayo dan waxaan leenahay alignment top alignment ka samee oo qaybta kore kasoo bilaab maadaama qoraal uu yahay dan waxaad ku sameysaa left alignment soo markii haddii aan cellka cabirkiisa weyneyno sida casharada hore aan kusoo baranay oo double click aan dhahno waxaan arkaynaa inaan si sax ah u arki kareyno marka kan labaad oo kale haddii aan cellka si kasta u weyneysiino ma arki kareyno marka alignment ayaan ku sixi doonaa widget dan waxaan sameyneynaa left alignment cellkan kale intuu imaaw widget top left alignment cellka u sax kan kale u imaaw widget top left alignment aydan cellka u sax halkaas markii aan saxnay waxaa yimid problem kale so description-ku wuu inoo saxmay oo waa la wada akhrin karaa laakiin waxaan arkaynaa itemska inay bottom ay yaalaan oo halka hoose isugu imaadeen marka si ayagana loo dareemo ama loo akhri karayo waxaan sameyn karnaa hal mar inaan wada doorano kadibna aan dhahno isugu imaaw middle alignment oo center ah kadib waxaan sameynaa middle isugu keenay dhexdana isugu keenay soo maadaama ay ciwaan yihiin anaga ma u baahnin marka inay center noqdaan waxaan leenahay waxaad tagtaan dhanka kaleente leftiga marka
so lefty oo middle ayaa ka dhigana marka quantity-ga kaleeto waxaa la sameeyaa waxaa laga dhigaa middle oo center ah si ay dhexda ugu soo aadaan sidoo kaleete markaa rabtid unit price-ka ayagana middle oo si toos ah u ah corner-kooda u joogaan ayaa looga dhigaa marka so hadda waxaa sameyn doonaa totalka quantity kasta waxaa leenahay equal quantity lagu dhuftay unit price and enter hadda muxuu sameeyey bottom ayuu noo dhigay dhamaantood aan koobiyeysan bottom ayuu noo dhigay so marka bottom maadaama uu dhigay anaga bottom kaliya ka waran waxaa lanaa inuu noqdo middle weliba cornerka jooga marka waxaan kaloo sameyn karnaa ugu dambeys inaan soo samgarayno dhamaantood totalkaadi hadda maamulihii aa u dirto documentiga waxaa u arki doonaa si visualizationkiisa buuxo ciwaanada maxay yihiin itemska maxay yihiin description-kooda quantity-gooda totalka unit price-ka totalka iyo totalka guud marka so alignment-iga wuxuu noo fududeynaa marka visualization-ka ama aragtida Microsoft Excel-ka inay noqoto mid qurux badan oo qofka maamulka ah ama akhrisan doono xogtaada ama la wadaagi doonto oo si fiican u arki kara halkaas iyo maanta ashkeenu u egay maasinid waa inuu ashkeena dambo